kulankan isaga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ay iskugu yeedhay in ka badan 14 safiir oo Soomaaliland ku leedahay caalamka ayaa maanta si rasmi ah uga furmay Hotel Mansour oo ku yaala magaalada Hargeysa waxaana furitaanka shirkaasi goobjoog ka ahaa hoggaanka sare ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Saad Ali Shire wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxa uu shaaca ka qaaday in Soomaaliland ay buuxisay shuruudaha caalamku ku xidheen dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Saad waxa uu sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii ay Soomaaliland kursi ugu yeelan lahayd jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ujeedada ay isugu nimi waxa weeye waa aqoon kororsi iyo waayo aragnimo qaybsasho iyo wada tashi aqoon kororsi micnaheedu ma aha dadku inaan aqoon lahayn marka la xulanayo wakiilada waxa lagu xushaa aqoon baa lagu xushaa iyo karti iyo waayo aragnimo laakiin wax kasto qofku uu qabtaba wuxuu uga baahan yahay had iyo jeer aqoon kororsi buu uga baahan yahay anigu PhD baan sitaa waxaan ku sitaa dhaqaalaha waxaan u baahanahay inaan aqoon badan oo iga dhiman ka kororsado waxay ku saabsan diplomacy anu diplomacy ma dhigan kulankeenu wuxuu socon doonaa 5 casho 3 casho hore waxaynu ku qaadan doonaa aqoon kororsiga iyo waayo-aragnimo qaybsiga 2 casho dambe waxaynu ku qaadan doonaa falanqaynta iyo lafagurka siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland maalinta ugu horeysa waxay noqon doontaa maalin isbarasho ay noqon doontaa iyo waayo-aragnimo qaybsi iyo inaynu isdul taagno safiirka iyo safaaraddu waxay yihiin ujeedooyinkeeda ama ujeedooyinka safaaradda qaab dhismeedkeeda shaqaalaheeda wixii la xiriira protocoolada iyo sharciyada ay ku shaqeyso maalin labaadana waxaan ka wada hadli doonaa safiirka laftigiisa qurbay jooga iyo waxaan idhahdaa xiriirka maalinta saddexaadna waxay u badnaan doontaa qaybta xiriirka iyo isgaarsiinta 2 casho dambana sida marka hore baan idhay waxaynu ka shaqayn doonaa ama afaguri doonaa ka dhibeedgaran doonaa siyaasadda arrimaha dibadda si himilooyinka loo gaadho oo loo hanto doorka ay wasaaraddu ku leedahay waxa weeye iskaashiga caalamiga xoojinta iskaashiga caalamiga dhinaca sugidda nabadgelyada dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo maalgashiga dhinaca aqoonta iyo farsamada daryeelka dadka reer Soomaaliland ee dibadda ku nool kor u qaadidda magaca iyo maqaamka Soomaaliland u ololaynta raadinta iyo helidda ictiraafka Soomaaliland ومركي ugu horeysay xukuumadda Soomaaliland iskugu yeedho in ka badan 14 safiir oo ku leedahay caalamka safiiradan iyaga ah ee saaka soo xaadiray ayaa Soomaaliland u fadhiya wadamada kale ah Addis Ababa, London, Djibouti, Ottawa, Oslo, Washington, Dubai, Paris, Brussels, Yaban, Washington, Sweden, China, Turkey iyo South Sudan kulankan isaga ah ayaa muddada u socdo lagu falanqayn doonaa درجرينتا السياسة دارمها الدبدة خضر كافي سبيس channel أرجيسة